وحير بنسوي قبل نقف صوقنا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ السلام أيام وهندا إن شاء الله تعالى ميل البؤتوكتين وحير بان ما تربعنا كهذلو دد مسك سوي إن شاء الله تعالى أنت صوق الشسود وهذا كل وحي إلهي ومارك تقدر وأرك دونان ciwaankayga maanta waxaan ku soo qoray aniga runtii program kale aan rabay maanta inaan ka hadlo laakiin program aniga runtii taabtay baan rabaa maanta inaan ka hadlo Soomaalidana aan kala yaabay arrimo badan oo ay sameynayaan ama ay ku sheekaysanayaan ama ay khalad u fahmayaan oo sida saxda ah aysan u fahmaynin kulli aan dadka kama aqli balin laakiin bal insha Allah waxaan la wadaagi doonaa sida aniguna u fahmay programka wuxuu ku saabsan yahay Trump ninka la yiraahdo ee Mareykanka haysta iyo gabadheena Ilhaan maaragtay iyadoo mas'uuliyiinta ugu waaweyn oo Mareykanka hadda gashay iyo cayda uu Soomaali caayay marka kulay anu hadda iraahdo Trump waa ila saxsan yahay dad baa ila yaabay laakiin insha Allah sababta uu ila saxsan yahay ayaan idin cadayn doonaa qof walba ra'yigiisu leeyahay Hashim Xasan soo dhaw marka waxa weeyaan dhamaan waa idin salaamaya marka waxa weeyaan Soomaaliya 30 sano horta Trump markaan idin magaciisiyo inaan caydiisa la yaabna maaha Trump waxa weeyaan nin cunsuri ah waana nin cadaana waana nin cunsuri ah wuxuu aad iyo aad uga xun yahay gabadha qaxootiga ah ee Afrikaanka ah ee soo gashay aqalka cad marka isagu wax weyn ma aha inuu gabadha wax alliyaalay wuxuu negative ka u hayo oo u sheego annaga laakiin Soomaali haddaan waa inaan ogaanaa Trump wuxuu caayay Ilhaan ma aha dadaa waxay u haystaan inuu Trump Ilhaan caayayo Ilhaan ma caayayo Trump awalan wuxuu caayay Afrikaanka dhan number 1 wuxuu kala caayay ummadda Soomaalida la yiraahdo oo isagu hadda u taliyo sababta uu u taliyaa waxay tahay wad aragteen shir walba oo 30 sano Soomaaliya ay ku heshiin weyday kii ugu dambeeyay hadda Djibouti markaan ka soo qaadno laba kasta oo qof oo mas'uuliyiin oo Soomaaliyeed oo meel isugu timaada nin uu Trump soo dirsaday baa dhex fadhiya oo u qarqaybinaya taana macnaheedu waxay tahay aqli iyo cilmi nagu filan ma haysano annaguna ma heshiin karo marka Trump waxa weeye waa xaakim baan ka dhiganay marka nina adigu xaakim ka dhigatay oo aad u cadaysay maskaxdaadu inaysan shaqaynaynin Yaasmin soo dhawo abay macaan nin aad u cadaysay in aad xaakimkaagi ka dhigatay 30 sano xaakim ku ahaa oo 30 sano dadkaagi saa u kala hayay sidii laba gabdhood oo yaryar oo isku soo booday saa u kala celinayeen awalna maskaxdii madoobayde ee maxay aheetoonay Afrika oo dhan ogaa meesha uga soo haray ee maraakiib ku soo qaaday markii madowga taariikhaha hadda dib u akhrisataan ama qisooyinka filimaanta dadka madowga ah fiirsataan waqtigii maaragtay gumeysiga ama lagu soo daldalayay ilaa Mareykan ilaa Yurub meel ka mid lagu soo daldalayay 3 nin oo cadaan ah ama 4 nin oo cadaan ah oo qoryo yar wata ayaa waxay markab walba ku soo qaadayeen intaasoo kun oo nin oo qaqaawan oo Afrikaan ah waxay garan waayeen 3 nin haday xabada soo tuuraan markay ugu badato 5 qof ama 6 qof baa ku dhimanaysa ayaga dhanbada ku tuura nimankaan ay idin kaxaysan dadka inta karan waayo horta aad u ka soo jeedaa oo madow ah markii taa aan ka soo tago sida Afrika oo dhan hadaan galo ama waqtiga gumeysiga sidii maaragtay inuusan Trump qaldanayn baan idin sheegayaa iga raali ahada telefoon baa isoo galay Trump inuusan qaldanayn baan idin sheegayaa sababtu waxay tahay Trump waa shakhsi cunsuriya laakiin maxaa ka dambeeya caydiisa waa inaad fahantaan Soomaalidu badanaa waxay ku dhigtaa wax ay markaa aragto Trump caydiisa maxaa ka dambeeya macnaha uu caytamayo maxay tahay ma ku saxsan yahay inuu caytamo mise uu ku khaldan yahay ilaa qofka ku nacab ee cunsuriga ah hadduu ku caay inaa la yaabtid ma aha waa tiraahdo Trump baa nacaayay dadkiibu meel uga dhacay Ilhaan muxuu ka qaadi karaa Ilhaan muxuu yeeli karaa Trump Ilhaan ma caayayo aduu ku caayaya sababtu waxay tahay aduu 30 sano ku xukumay adaa 30 sano tashan waayay ilaa hadda ku xukumaa doorasho ma samaysan kartid uusan Mareykanku ku jirin heshiisu Mareykanku isagu goobjoog ka ahayn ma qabsan kartid ma heshiin kartaan waddankiini idinka baabi'iyay Ilhaan idinka dhalatay hogaamiyayaasha Soomaaliyeed ee maanta dadkooda masaakiinta ee shacabka ah hantidooda intay soo dhacaan guryaha ka gadanaya qurbaha
ama caruurahooda jaamacadaha u soo dirsanaya sida Ilhaan oo kale ayuu cunugaagu biri noqonaya waxbarashadiisa ama dadaalkiisa kuma qiimaysna because wadankiisi adiga iyo aabihi iyo awowgiisa baabashay ma kula tahay marka Ilhaan inay Trump ka helayso sharaf maxaase u xanaaqsan tahay adigu oo hadba Trump u soo qaadanaysa sawirkiisa ma fahmi sababtu waxay tahay ma fahmi kartid inuu Trump saxsan yahay dad baa waxay u haystaan inuu Trump qaldan yahay Trump ma qaldana muxuu ku qaldan yahay hadda hadduu doorasho idin dhacdo ma waa kaligiin qabsan kartaan ma qabsan kartaan waa inuu nin Maraykanku soo dirsaday uu goobjoog idin ahaada sababtu waxay tahay ma awoodaan ma israbtaan okay Trump maskaxdii waxa weeye Soomaaliya iyo Afrika oo dhan baabi'isay ayuu ka soo jeedaa awalan waa nin cadaana awalanna waxa weeye ujeedadu idin Afrika oo dhan u baabi'iyay waxay tahay nin walba oo Afrikaana inuu dhexdiisa ku mashquulsanaado si uusan adduunweynaha waxba ula qaybsan so hello xagee maraysaan marka waqtigee maraysaan xilligee maraysaan mutacallimiinteennii dibadda wax ku bartay aqoon-yahankeennii xitaa Maraykanka maanta Trump uu ka caytamayo nimankii wax ku bartay qaar baa hogaamiyayaal Soomaaliya ka noqday qaar baa ilaa maanta waxaan ku iri jaamacadaha Maraykan wax ka dhiga shaqaday noo qabtaan maxay tahay kulli waa wada mucaarad kulli aqoon-yahanka Soomaaliyeed oo dhan waa mucaarad meelaha qaar markay akhrisid waxa arkaysaa professor Hebel Dr. Hebel oo ama farmaajo mucaaradaya ama waagu Hebel ahaa madaxweynaha mucaaradaya ama qabiil Hebel ama gobol Hebel la jira ama dawlad gobol Hebel difaacaya waree maskaxdii marka jaamacadda Maraykanka ku soo bartay Maraykanka ilmahaygu jaamacad ka dhigtaan oo jaamacadaadu cilmigaagu muxuu tarayaa haddaad adiga hoygii Ilaahay ka beeray ama qaaradda Ilaahay ka beeray ama wadankii Ilaahay ka beeray aadan adigu maamulan karin oo aadan fahmi karin war ninkan aad wax ka baranayso jaamacadiisa aad soo aaday waa nin adiga kula mid ah cilmina qaar baaba ku faanaya hadda inay la cilmi yihiin maxaa marka si wiilkaaga iyo gabadhaadu biri sida Ilhaan oo kale aan loo caayin oo aan loo dhihin gabadhii yareed ee qaxootiga ahayd ee dhugdhug lahayd ay waxaad samaynaysaa meelihii baabacsanaayo ambulance iyo dhakhaatiirta iyo isbitaalada lahayn oo miyuu ku qaldan yahay Trump marka qaar baa Trump soo sheer garaynaya iyagoo Ilhaan haday doona qabiilku difaaciye qaar baa waxay soo sheer garaynayaan Trump baa maanta dadkii caayay qof baa telefoonkaas waxaan jeclaan lahaa inuu iga daayo waxaan idin sheegayaa marka ummadda Soomaaliyeed qaar baa waxay ku mashquulsan yihiin ilaa hadda mas'uuliyiinta iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed aqoonyahanka Soomaaliyeed waa idin sheegay arrinku noo qaabilsan yahay isagu waa mucaarad aqoonyahanka Soomaaliyeed waa mucaarad wax kalena mucaarad kuma yahay wuxuu mucaarad ku yahay hadba dawladii meesha timaata inuu yiraahdo si xun bay wax u wadaa markaas waxa lagu leeyahay maalinta dambe aqoon-yahan Hebel oo jaamacad Hebel wax ka dhiga ayaa waxa laga wareysanaya arrimaha farmaajo iyo dawladda nabad iyo nolol laga wareysanaya markaas uu buug iyo qalin la soo baxaya markaas wuxuu sameynaya mucaaradnimo waxa weeye waxa qaban wadanku waxa weeyaan way baabasheen wadanku way yeeleen war wadanka adaa maskax u ah adaa aqoon-yahan u ah adaa la rabaa wadanka inaad wax ka bedeshid adaa la rabaa wadanka waxa qaldan inaad ka bedeshid ummadan siyaasiyiintan qaldan oo baabi'isay oo maskixiyan baabi'isay oo dhaqaale ahaan baabi'isay meesha ay ka saxsan tahay ummaddu ama meesha ay ka neefsato kaliya uga dhagine meesha ay ummaddu ka dhig baxayso oo corruption-ka la dagaalan aqoon-yahan baa tahay oo dhalinyarada wax u sheeg oo TV-yaasha soo fariiso oo hadal oo waxa runta ah oo jira ka hadal kama uu hadlayo farmaajo ku dhagan yahay ilaa uu ka dhaco farmaajo markuu dhacana kan soo fuuli doona oo mas'uuliyadda qaban doona buu ku dhagan yahay wuxuuna ku leeyahay jaamacad Maraykanka ama Kanada ahaan wax ka dhigaa Ilhaan marka caydeedu maxay macno oo sameynaysaa marka sabab waxay tahay Ilhaan ma aha shakhsiyan waxa uu weerarayo wuxuu og yahay Trump waxa adiga tahay sabab waxay tahay 30 sano awalna awoowayaasha buu gumaysan jiray oo waad aragteen oo Afrika oo dhan buu gumaysan jiray wuuna idin kala qayqaybiyay sidoo rabuuna idin ka yeelay ilaa maantana Trump asaga ku xukuma waad aragteen markay mas'uuliyiinteena hadlayaan maxay dhahaan caalamka waxaan u sheegaynaa dawladaha igad waxaan u sheegaynaa adduunweynaha waxaan u sheegaynaa adduunweynaha caalamka sheegaysa yihiin waa Trump weeye Maraykanka u sheegaysa u dacwoonaysa marka nin adiga ku xukumo oo adigu u dacwoonaysid oo adigu maskaxad isku maamusho aad laadahay
sidee u dhihi kartaa marka Soomaaliya caay waxa weeyaan walaalayaal waxaan idin sheegayaa marka ummadda Soomaaliyeed waxaan idin sheegayaa aqoon-yahankiinu iyo dadkiina qurbaha intay soo carareen caruurta ku korsanaya caruurtayda aniga hadda maanta Sweden aan la joogo oo aan ogahay in intay Sweden wax ku bartaan biri raba inay ka shaqeystaan cunugaygu meelna sharaf kuma haysanayo cunugaagana Mareykan ilhaan iska daa waqtigaane 20 sano soo socoto oo dambe cunugaagu Mareykan sida ilhaan maanta loola hadlayo si ka daran baa loola hadlaya sababtu waxay tahay dhowr boqol oo sano kuwii ay keeneen oo ay u keeneen gumaystahaba ilaa maanta halka looga istaagaya oo aad aragteen oo biliiski cadaa uu nafta uga qaadaya asagoo jilibka ku hay sababtu waxay tahay wuxuu og yahay wax alliyaalay wuxuu raba ninka cad inuu ka sameyn karo ninka madow anigu marka waxaan la yaabanahay adigii oo aan waxba fahmaynin oo waxa meesha ka dhacay aadan fahmi karin oo maskaxdaadii iyo caqligaagii oo dhan qabiil uu si ugu kooban yahay oo wadankaagii u burburiyay qabiil oo ilaa maanta ninkii qaldanaa oo corruptionistaha ahaa oo systemkii ummadda oo dhan baabi'iyay oo ummadda inay isu timaado diidan oo ummadda inay heshiiso diidan ilaa maanta adiga ifiirsanaya markaad ka baxdo meeshayda aad ku difaacaysid qabiil hadda Trump see isaga difaacaysa maxaa Trump ku daba dhigay marka ama waxaan baqabaa Soomaalidu inay xishootaba Trump iyo wax la midaba inaysan ka hadlin Trump inuu doobiyo xaq buu u leeyahay Trump wadankiisii buu hagaagsaday Afrika qaareedkeedii buu soo qaatay iska dhaaf khayraadkeedii iyo dadkii Afrikaanka ayuu soo qaatay oo uu ilaa maanta gumaysta oo halka uga taagan yahay xaq buu u leeyahay inuu ku caayo sababtu waxay tahay isaga Ilaahay ka soo ku yeeshay marka caqligaaga iyo maskaxdaadu sida Trump maskixiyan ugu xiroobi lahayd bal horta marka hore ku dadaal intaadan ilhaan u hilin ilaa ilhaan iska dhaafe 50 sano dambe kuwaaga soo socdo dhalan doono si dhalan doono caayaya Trump wiilku si dhalay baa wiilkaaga saa u caayi doono oo dhihi doono wadan eber waxaad ka timid Soomaaliya la dhaho jungala ilaa waanu aragnaayo waxba nooma soo naasacada wixii yar oo noo iftiimana idinkii baa saa ugu dhagan ilaa ninka reer hebel ii muuqdo oo aan meesha ka rido yaa nabadi ma dhacayso kan baadiyaha jooga ee kan professorka ah Soomaali waa isku caqli marka hadashid waxa lagu leeyahay in hebel baad u dal leedahay maxaad in hebel ka rabtaa waa nin adduunkii burburiyay dadkii iibsaday ummadii u diidan inay nabad hesho dhaqaalihii ummadda jeebka gashtay corruptionista ah tuuga aan waxba xukumi karin dadka inay isku yimaadaan aan rabin baad ka hadlaysaa markaas waxa lagu leeyahay naagtan ma u jeedaha ninkaas la daba dhigay ama reer hebel baa la daba dhigay ama wasiir hebel baa la daba dhigay ama madaxweyne hebel baa la daba dhigay xumaatadii lagama hadli karo horumarkii bini aadanka wadadii aan u mari lahayn lagama mari karo adoo hubkii qabiilka sita ayaad fadhidaa kabacdi waxaan rabtaa cunugaaga iyo qofka Soomaaliyeed koonka adduunka inuu ku karaameysnaado soo caqli xumo maaha marka ilhaan maxaa loo caayay oo ilhaan maxaa loo caayay waay hadda ilhaan laba qof oo Soomaaliya hadii la heshiisiinayo Trump baa loo wacayaa nin buu soo dirsanaya markaasuu leeyahay orod xayawaankiiba shir leh dhex fariiso ya markaasay waxay leeyihiin dawladuhu adduunku waana maqlayaan inaan annaga iyo dawladda federaalka heshiin weynay in annaga dawlad goboleedka hebel haddaan nahay nala dhibaateeyay